هوي 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 بلشو وقويان وين درقرت قاسي أمينة وقويان وين درقرت قاسي أمينة سيامينا وقويان وين درقران يا سيامينا عدك وغريدا 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 عدك وغريدا عدك وغريدا 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 عدك وغريدا وهاليين بدن arrimaha bulshada u adeegayo xaqiiqada ogsoon codka ugurida codka ugurida yeesu madiyo warladiisa jecel yeesu madiyo warladiisa jecel ونبنهاي إنو أيها شعبيا الدين قرن وأبور كرو ونبنهاي إنو أيها شعبيا الدين قرن وأبور كرو waxa aaba noqon kara ummad waxa matali kara xuquuqaal aqoon u leh mar kastaba axwaashe codka ugurida waxaan hogaaminayay waftiga xildhibaan cabdinaasir oo markaa musharax golaha baarlamaanka waxa markaa aanu keenay biyo saa arkaysaan runta abaartu aad bay u baahsan tahay ilaahay haynaga soo jabiyo dhammaan tuulooyinka ku teedsan xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya u dhaxeeya tuulooyinka dhaca ama ku yaala abaartiyo biyo-la'aantu si siman ayay u saamaysay barkadii way madheen intaasoo barkadood baan soo dul taagnay barkad saxadeedu qoyan tahay ma jirto taa imika biyo lagu shubayo mooyaane ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu ilaahay raxmadiisa inoo shubo waxaynu halkan aad uga mahadnaqaynaa xildhibaan cabdinaasir oo isaguna runtii keenay booyadahan biyaha ilaahay khayr ha siiyo waa musharaxa deegaankan ka sharaxan waa musharaxa beeshan haynu degan halkan joogno u sharaxan waxaynu leenahay insha allah isagoo ugu dacaynaynaa ilaahay khayr ha siiyo ilaahayna musharaxnimada aynu ugu dadaalayno allah ku soo saaro inaynu soo saarana waa waajib dhammaanteenna waxaa inagu waajibaa xildhibaanka alla khayr ha siiyo inaynu u shaqayno mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa waftigan uu hogaaminayo xildhibaan cabdinaasir yuusuf cismaan oo u sharaxan golaha baarlamaanka biyahaasi isagaa noo keenay waa qofkii koowaad horayso iyo dambayso een aragno hawlahaas musharaxnimada ku jira oo isaga oo aan xilkiiba qabanin u soo gurmada dadka aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa cabdinaasir yuusuf cismaan iyo waftigiisaba waxaa kaloon u sheegaynaa in anugu ka warwarin oo la hubo inuu soo baxayo xildhibaannimadiisu bartaa uu taagan yahay buu xildhibaannimadiisu lagu hubaa haddii ilaahay nagu simo maalinta la codaynayo ee 31 May aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waana loo wada heegan dadku qofka maalintaa gaadha ee ah qof qaangaadhahoo codaynaya inaanu meel kale codkiisa maraynin ee uu loo codaynayo cabdinaasir sidaa aad ku tidhaahdeen xildhibaan sharci ahaan waa musharax ileene quluubtiinna ayaa ilaahay noo raaci doona dhammaanteen
waajibaadka uu xildhibaan aynugu yeedhaynana waxaa weeye maadaama xilli adag lagu jiro garaadkii garashada siisay dadkaaga u gurmo oo biyo u qaad mas-uuliyadda wataa isagoon kursigii ku fadhiisan waa ninka keliya ee ilaa xalay toole nala soo hadlayey ee yidhi jiiddan oon ahayn magaaladan oo qudha ilaa iyo qolbuulo leh dhammaan deegaannadan dadka ku harraadan ii soo sheega intaan imminka ka soo gaadhsiin karo waan runtii ugu mahadnaqaynaa ilaa saakana dadkaasi waxay u taagnaayeen kalgacalka u gashaday ilaahay waxaan uga baryaynaa waa nin mas-uul ah asagoo da'yar ayuu xusbiga ucud ka bilaabay maantana uu madax ka yahay oo yahay dadka juuriga ee miiska u fadhiya xusbiga ucud ammaan odhan karo xusbiyada somalilan waa rukumada nabadda iyo hoggaanka siyaasadda had iyo goor waddanka majaraa u haya ayuu ka mid yahay haddaydin oqon dad badan baa meeshan joogee waxaan hadalkaygu ugu sii dhaadhacayaa odayaasha xalay tole waan wada hadalnay waxaan baaq u dirayaa dawladda somalilan waxaan baaq u dirayaa xildhibaannada kale ee musharaxan dadka isleh xildhibaannada isle hargeyso qudhaa laydinka codaynayaa oo deegaankiinnu waa hargeysa halkan waxaa ku nool inan iyo adeerkii inankuna hargeysa degan iyo adeerkuna halkan joogo ninka xoolahoodu baxo adeerkiina uu bakhtiyo harraad u go'o codka hargeysa waan ka xanibaynaa markaa hays odhannina cabdinaasir baarlamaanka ayuu cod ka rabaayo codkiisu mitirka ayuu ka sarreeyaa waannu qiimaynaynaa maanta laga bilaabo 15 sannaa ka soo wareegtay xildhibaannada hore lama xisaabtami karno xildhibaannada dambe waxaan ku guubaabinayaa deegaankan oo aanan cidna ka qarinayn habeen iyo maalin aanu imminka 2 bilood aan ku sugnaa deegaankan oo aan ku guubaabinayay ha lala xisaabtamo intaanay kursiga fadhiisan ha la weyddiiyo deegaanka waxay u qabanayaan ha la weyddiiyo deegaanka waxa ka maqan ha la weyddiiyo xoolahani waxay u baahan yihiin hadalka waxba ila sii dheeraan cabdinaasir waxaan leeyahay ku bushaarayso habeen iyo maalin hadday tahay jid dheera loo marayo jid gaabanba waannu ku garab taagannahay ilaahayna waxaannu ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo oon kursiga kugu hubsanno si uu deegaankan uga baxo baahiyo badan uu tabayo raggii hore ee lagu khasaarayna inaannu kaga gammaanaan cabdinaasir rajaynaynaa iyo ragga la midkaaba si fiican uga soo baxo ilaahay uu rumeeyo kursigaa uu gaadho isaga iyo waalidkiisina ilaahay naxariista ka waraabiyo waxaan leeyahay deegaanada ninkaa inoo soo gurmaday ducaa iyo garabba aan garab taagnaanno aad iyo aadna waannu ugu mahadnaqaynaa isaga iyo wafdigiisa waxa weeyaan waxaannu ka codsanaynaa xildhibaannada kale iyo dadka kale ee ciidagale inay dadkooda wax u qabtaan ilaahay subxaana wa tacaala garab galaan dadkooda jilcisan ilaahayna la kaashadaan aad iyo aad baan ugu handaqay wafdiga uu hogaaminayay xildhibaanku annagana imanka haddii ilahaydhaa wixii garab iyo gaashaana waa siinaynaa yaa dhammeeyoo soo gunaanaday wixii aanu doonaynay ama aanu u baahnayn annakuna waannu yar baritaaraynaa xildhibaanka iyo wafdiga la socdaba waannu soo dhowaynaynaa waannu u mahadnaqaynaa waxaananu ilaahay ka rajaynaynaa waxaannu jirray ilaa iyo ingiriiskii baannu ayaannu kaga ridnay 60kii waa layga celiyey waxaa layidhi ma geli karaysa iska noqo kolkii ingiriis la eryayey waa layga celiyey waan ka yaraaday ilaa intaa waan la soo daba taagna nin aan dabeed wuxugu rido oon dib u arko eliya baalmaan saari ilaa intaa waan ku ridayey markaa waxaan rajaynayaa way ka duwan tahay arrintii markii imaka ahan wuu iga lumay kaarku markii ay soo gunaanadatay aan imaka arrintii u ogaaday inuu ilaa intaa waan la socday uu xildhibaankaasi meeshii soo galayna diyaar baane meel kastaba diyaar baanu kannay ilaahayna waxaanu ugu mahadnaqaynaa in aan ku guulaysanno arrintaa ilaahay saasaan ugu mahadnaqaynaa ilaahay saasaan ugu mahadnaqaynaa ilaahay saasaan ugu mahadnaqaynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadle inankaasi wallaahi si fiican musharaxa dadkiisii soo xasuustay kolay deegaanadii hore waxba cid baa ka soo baxday cidii hore soomay xasuusan
xildhibaanadii hore soo baxnayna waxa xasuustay in guuxa iyo wixii soo baxay toona ma aragno codadkii hore naga khasaaray insha Allah kan waanu kaga raysanaynaa waan u maleynayaa insha Allah waan ku guuleysanaynaa waan u maleynayaa codka iyo waxaan ku uri taageeraha iyo waxaan ku uri xooga iyo xoolaha iyo xiniinta wixii aanu kari karno intaba waanu la garab taaganaynaa adeerkay insha Allah xaga ilaahayna waanu uga soo ducaynaynaa kuma guul dareysanayo sida ummadiisa u soo xasuustay u dadkiisa u soo xasuustay asagoo aan kursigii wali ku fadhiisan u dadkiisa u soo xasuustay dib ugu soo eegay insha Allah ilaahayna ha ku asturo baanu leenahay wuxuu rajaynayo kuniyada ku hayana ilaahay ha u guuleeyo baanu leenahay ilaahayna ummadda ha soo qaboojiyo alxamdulillaah rabbil caalamiin waxay toolay alxamdulillaah rabbil caalamiin iyaga ilaahay mahadule alxamdulillaah maxamed cabdinaasir suf cismaan alxamdulillaah ilaahay sharfaan leenahay sharafi korkaaga ha haato alxamdulillaah toolay sidaad noo sharaftay ilaahay ku sharfo waan ku soo dhaweynaynaa kaliya laab annagana inta kaa dhiman insha Allah bidmillaah waan ku dhamaystiraynaa alxamdulillaah saad noo garab istaagtay insha Allah waa inaanu ku garab istaagno alxamdulillaah rabbil caalamiin odayaasha iyo haweenka iyo waxgarad kale dhammaan reer ina guuxa waxaan ku salaamay salaamta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn horta ilaahay baa ugu mahadnaqaynaa ilaaha caafimaadkii nabadgelyadina siiyey waxaan kaloo ilaahay ka baryaynaa waa maalin jimcaad oo jimca oo maalin barakaysan weeyaan inuu ilaahay raxmaadkiisa inoo shubo inuu ilaahay abaarta inaga soo jebiyo inuu ilaahay roob degdega ina siiyo oo anfac leh oo xoolaha iyo dadkii ummadduba ay runtii ku barwaaqowdo ilaahayna siiyo walaalayaal runtii maanta waxaa lagu jiraa xaalad adag deegaankan guud ahaan sallaxley abaar ba'an baa haysata oo waxa ugu daran waxa weeyaan biyo la'aan intii hore waxaan filayaa muddooyinka ugu dambaysay abaarta caynkan oo kale ah ilaahay subxaana wa tacaala waynu ka ladnayn iminkana runtii waa laga wada siman yahay markaad hargeysa ka soo baxdid ilaa iyo hawdka oo dhan runtii abaartaasi way is haysataa oo weli wax laga simeeyey waa biyo la'aan aniguna maanta halka waxaan u soconnaa inaannu baraarujinno oo muxuu ahaye dawladda ganacsatada shicibka reer somalilan qurbajoogta meel kastoo joogaanba inay dadkooda u soo naxariistaan oo wixii ay u soo tari karaan soo taraan oo baahiyaha biyaha ay uga horrayso qof walba wixii uu soo taransan karo amba uu ku biirin karo dadkeennaas inuu runtii dee gacan ka geysto ayaannu runtii maanta annaguna halkan u soconaan u soo baraarujinaynaa walaalayaal runtii maanta deegaamada aan marayno de wixii aannu awood u lahayn runtii waannu wada gaadhsiin doonnaa biyaha amba xaduudka ha ahaato amba xagga waqooyi ee runtii iyaguna magaalada dusheeda ha ahaato maanta tan ay wadnaana waa midaan ilaahay ugu dhowaanayno codkii weli maynaan gaadhin maalinta codka insha Allah ilaahay subxaana wa tacaala nabaqaha inuu gaadhsiiyey waxa weeyaan dee waynu insha Allah iska war hayn doonnaa laakiin anugu mid uma idin ballan qaadaya anugu runtii qaad ma cuno sigaarna ma cabbo balwad kale ma lihi insha Allah sidaa iminka idiin dhex taaganahay ayaa haddaan soo baxana idiin dhex taagnaan doona oynu iska war hayn doonnaa deegaankan runtii aqoon dheeraadaan u leeyahay baahihiisoo dhowaan ogahay ma odhan karo anaa wax kasta baahi tiraya laakiin waxaan idiin sheegayaa inaan runtii wax kastoo idinku yimaada aan la qaybsan doono albaab kastood u baahatayna garaacnana insha Allah aan garaaci doonno haddii ilaahay nafta nagu sigo runtii wax laga xumaado ah maanta reer somalilan 30 sano ayay madax xalla gashay oo madax bannaaneed haddaynu shicib iyo dawlad isku tagno waxba wada qabsan karnaa habeen kasta 800 oo kun oo dollar ayaa Itoobiya u gelinaa oo aynu jaad runtii cashuurta lanaga qaaday aynu gelinaa waa 800 oo kun oo dollar bil kaliyaata haddaynu jaadka iska dayno waxaan qabaa baahida biyaha maanta taagan iyo abaarta soo noqonaysa boqolaal riig bay noo qodi lahayd boqolaal riig oo Soomaaliland dhanba ka qodi lahayd marka runtii waxayna haysataa wax weeyaan waa maamul xumo ayayna haysataa waxayna haysataa ummadii oo isku jeeda waxayna haysataa runtii balwada jaadka aynu ku wada foorarno oo dhaqaalaheeni iyo cududeeni iyo dhiigeeni iyo dhaqankeeni runtii aad u xumeeyay
insha Allah waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu ka baxno ilaahay waxaan ka baryayaa inaynu runtii aynu maanta inaynu riigag badan aynu helno riigii hadda salaxlay waa lagu ladnaa hadda uu culidoobay waan ognahay inaynu riigag kalena waan heli karnaa halkii qoolbula maandhow waxa la dhex dhigay isagana in laga qodo muxuu ahaayey riig isagana kiina waxaan rajaynayaa inuu isaguna iman doono waa laga bixi doonaa baahidan biyaha ah laakiin idinkana waxaan ka codsanaynaa codkiina gaarsiiya meel walba tabashadiina hala maqlo dawladda xaq baad ugu leedihiin waxay aad xaq u leedihiin cashuurtiina la qaaday inay idinku soo celiso wax xaq baa lagu leeyahay hadla nin aan hadal habartii qadisay ee Soomaali tiraahdaa haddii aydan idinkoo Hargeysa inta u jira aan dareenkiina amba baahidiina aydan sheegan ninna idin iman maayo waxaad kala ogaataan baahida maanta halka ka jirta min bari ilaa galbeed waxaan ka wada simannahay way laakiin dadku waxay ku kala wanaagsan yihiin waa si loo kala dhawaaq dheeraado amba baahidooda loo tirsado amba loo sheegto marka runtii dad goobaatiin waan ogahay waad xishoonaysaan laakiin waxa dawladda xaq ugu leedihiin lagama xishoodo lagama nahagrado dawladda iyo shicibka iyo ummadda kale waxaan ku ballan waxaan halkan baaq uga dirayaa iyo hay'adaha caalamiga ahba inay iyaguna gurmad degdeg ah la soo gaaraan oo baahida biyaha runtii oo dadku aad ugu ooman yihiin iyaguna ayna wax ka qabtaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala roobka inoo shubo dalka ilaahay inoo barakeeyo ilaahay guusha hayna siiyo ilaahay dalkeena dal barwaaqo Allah ka yeelo quluubta reer Soomaaliya Allah isku soo jeediyo ummadda Soomaaliland Allah ha guuleeyo dalkii jira ee ixtiraaf hela ee dunida wax la qaybsada Allah ka yeelo madax wanaagsan Allah inoo soo saaro ilaahay subxaanahu wa ta'aala tawfiiq helo inoo siyaadiyo idinkuna Allah idin gargaaro xoolihiina ilaahay idin barakeeyo ubadka Allah idin barakeeyo waxaad gacanta ku haysaa ilaahay idin barakeeyo insha Allah waan ka bixi doonaa abaarta ilaahay roob degdeg oo barwaaqo la'aan haynisiyo nimi ama aan u soconnaa khayr Allah siiye musharax Cabdinaasir Yuusuf Cismaan oo sharaxan golaha baarlamaanka ayaa muxuu ahaayay bulshadiisa abaaraha jira iyo biiraanta jirta ee deegaamadan ballaaran ee Soomaaliland galbeed iyo waqooyi iyo bariba leh ayuu muxuu ahaayay doonay ku garab istaago oo baahida wixii awoodiisa ah muxuu ahaayay ku taro bulshadiisa waxa ugu deeqay deegaanka booyada biyo ah ayuu ugu deeqay deegaanka waxaan leenahay subxaanahu wa ta'aala abaatan soo jabiyo ilaahay roob ha inoo shubo ilaahay abaatan naga jabiyo kanaan joognaa maanta waa tuulada la yiraahdo laanqeyrta celiyo waxaana ka mid tahay tuulooyinka sida adag ay u haysato biyo la'aantu safarka aanu soo waxa hogaaminayay Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Magan oo ah musharaxa golaha baarlamaanka ee deegaanadan aynu maraynay u sharaxan musharaxu waxa uu deeq biyaah ugu talagalay kaamamkan biyo la'aantu haysato waxaanu ka soo bilownay ina guuxa oo ah halka musharaxu uu ka soo jeedo waxaanu maraynaa laanqeyrta celiyo musharaxa marka koowaad waxaanu ilaahay ugu baryaynaa musharaxnimada inuu alle ku guuleeyo ninka maanta u soo gurmaday ee gurmadka biyo la'aanta ka qayb qaatay ee isxilqaamay ee isagu gartay in dadka haraadan uu biyo gaarsiiyo waxaan filayaa hadduu baarlamaanka inagu mataana sidaa iyo si ka badan inuu noo xasuusnaan doono inuu wax inoogu tari doono waxaynu xaqa u leenahay inuu wax badan ka tari doono waayo waa wakiil baarlamaanka Soomaaliland wakiil nooga noqonaya oo wuxuu wakiil uga noqonayaa deegaanadan wuxuu inoo raadin doonaa xuquuqda deegaanada ka maqan ilaahay khayr ha siiyo waynu ku soo ducaynaynaa ilaa qoolbule waanu mari doonaa haddii la yiraahdo biyo la'aantu si adag bay dalka u haysaa waxaan ka codsanaynaa hay'adaha caalamiga iyo dawladda Soomaalilandba dadkan in la gurmadka lala soo gaaray biyo la'aanta waana xilligii ay ugu darayd barkaduhu dhammaan way wada qalaleen booyadaha imika xildhibaanku uu bixiyay ayaana ugu horeeya waqti baa dhacay abaarta ilaahay baa qaadi karaa jalla jalaaluhu isaga ayaa keenay isagaana qaadi karaa waxaan u hambaliyeynaynaa oo aad iyo laxad ugu hambaliyeynaynaa qolada ninka musharaxa Cabdinaasir iyadoo raggii odayaasha ay ka waaweynaa iyo maalqabeennadii iyo ma garanaysaa
madaxdiiba iyo dawladdiiba ay joogaan isku xilqaamay ma garanaysaa inuu ummaddiisa wax gaadhsiiyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waana hambalyaynaynaa musharaxnimadaa uu ku jirana waxaanu leenahay waa ku soo dhawaynaynaa waana ku taageeraynaa waana ku garab taagannahay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu soo baxo uu ku guulaysto musharaxnimada sidaa daraaddeed waa aqoon dee laysdheer yahay weeyaan qofka gartay ma garanaysaa ummaddiisa marka wax dhacaan ee wakhti dhaco inuu u gurmado qofkaasaa ma garanaysaa ummaddu ay la jirtaa ilaahayna la jiraa laakiin qof ma garanaysaa wuxuu soo doontaa dee kolley dee waxbaa ka maqan halkaa waxbaa ka dhiman oonku wuu jiraa abaartuna way jirtaa xaalufkuna wuu jiraa haddana waa alla ka inaga saaraa waxaase laga maarmila iyo amase la qaadan la'yahay xurmada iyo sharafta uu noogu soo gartay oo noogu keenay alla laga gudoontay sharaftiinna iyo keenistaa noo keenteen iyo sidaa noo soo xurmayseen allaha idin xurmeeyo allaha u xurmeeyo wiilkana ilaahay waxaanu baryaynaa inuu ku guulaysto oo ilaahay gacantiisa waynugu dhiibo wuxuu ilaahay ka doonayo sharaf lahu ku raago uu ku reeroobo annagana wax noo anfacdo oo aan noodeena deeqda waannu idinka guddoomanay waannu idinku jecel lahay waannu idinku soo baxnay 20 marra waannu idinku sara taagannahay wiilkaa waannu madigtaannu ku qabannay allaha naga aqbalo ilaahay ha naga aqbalo ilaahay idinkana sharafta aad doonaysaan ha idinku guuleeyo marnaba gacanta kalamaanaan bixin makana dad meel kale u handaaya iyo dad cid kale u jeeda iyo dad meelo kale indhaha u taagaya midna ma nihina ilaahu ha naga dhig waayo bidana dharag baa deeqa nin ragana xurmo annaga xurmadaa maantaana riday yaa annagoon hadlanin iyadoo aanu saaka weli arrintii gacanta ku qabanin ninkana soo xurmeeya allaha xurmeeyo idinkana allah idinku guuleeya gacantaa haysaane kulligan allah inaga wada aqbalo guddoomiyaha magaalada celiyo odayaasha haweenka waxgaradka dhammaantiiba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii halkan waxaa ka jirta abaar baahsan oo magaalada guud ahaan degmada Salaxley tuulooyinka xadka muxuu ahaay ku yaala ha ugu sii darnaato biyo la'aan baad la'aan waa taas hadda laga sheekeynay xoolihii xitaa Hargeysa looga soo iibinaya gulow ay cunaan iska dhaaf waxay kala cunaano marka halkan waxaan baa ugu direynaa shacbiga reer Soomaaliland gaar ahaan xukuumadda ganacsatada qurba joogta iyo qaybaha kala duwan hay'adaha qaybaha kala duwan ee bulshada intaba wixii dadkooda masaakiinta ah ay soo gaarsin karayaan ee biyo ugu horeyso inay runtii ay gacan ka soo geystaan baan horta marka hore baa ugu direynaa marka labaad walaal horta maanta ma aha maalin doorasho kaliya waxna keento wax weyn aan la qaybsano dibta iyo xanuunka iyo abaarta inaan la qaybsano maanta halkan u soconaa weli foodkii meynaan gaarin ilaahay hayna gaarsiiyo waxa weeyaan reer Soomaaliland waxay ku tiirsan yihiin waxa weeyaan waa reer guraaga dhaqaalaha reer Soomaaliland inta ugu badan waxa ka soo baxa waa reer guraaga marka hadduu miyigeeni oo maanta abaaroobay oo xoolihii ka baxeen oo biyo la'aan jirto oo baad la'aan jirto waxa dee waajib nagu ah مسؤول كستا أو رئيس مالنا يعيد كستا احترسه إني مركز هذا واحد تقدر جلسوا جاران أنت هذا المريني دوار كيسان براجيه ومريهين وحيا الله الشباب بيدالك يعني أنا رنتي دوما كيفين يعني waxaan runtii gaar ahaan madaxweynaha halkan ku soo jeedinaya inuu maadaama oday qaranku yahay inuu muxuu ahaayay gudidii uu hawlgeliyo abaaraha oo gacan ka geystaan wax kastoo maanta gacanta ku hayn la dhigo si abaarta laga qayb qaadan lahaa iyo baad la'aanta biyo la'aanta in fulwad qabano halkan safarkan saaka daarana oo hogaaminayay Cabdinaasir Yuusuf oo ah musharax ka sharaxan deegaankan ila guuxa ilaa la qeyrta celiyo biyayuu soo qaybiyay ilaahay ka tisaaysiyo aamiin abaarahana ilaahay naga soo jabiyay aamiin sidaa uu wax u gartay waxaynu ka codsanaynaa xildhibaanada kale ee ka soo jeeda deegaanka ee codka doonayay in iyagana uu ku ilhaamiyo ama garansiiyo inay beesha soo gaarsiiyaan biyaha baahida koowaad ee biyaha waxaan soo dhaweynayaa waftigan socdo uu hogaaminayo Cabdi Yuusuf xildhibaanka
goobta laga dooran doono haddii aan la yidhaa ee ugu weynina waa qoolbulo leh insha allah inta soo baxdana inuu ka mid noqdo madaxana ka noqdana waanu rajaynaynaa intaa ka bacdi wuxuu noo keenay booyado biyaa iminkana way taagan yihiin shalayna qaar baanu shubnay isaga iyo wixii la mida hadday gudaha waddanka joogaan iyo hadday dibadda waddanka joogaan wixii dalka u dhashay waddanka dee baahi baa ka jirta biyala'aaneed abaar baa ka jirta xaaluf baa ka jira kolkaa cid kasta oo xilka saaraya waddanka iyo dadkooda muslimkaa inay u soo gurmadaanna waanu uga baahannay oo wixii qofka uu tari karayo waddanka hadduu halkan joogo iyo hadduu dibad ku maqan yahay iyo hadduu magaalooyin gudahooda joogaan inay u soo gurmadaan abaarta waa arkaysaanoo inta saaka soo marteen iyo halkay taagantiinba waa biyalaaday annagu haddaanay qoolbulalle ilaa 2 bilood waan biyalaa intaana ilaahay baa mahad ku leh kaamka nagu dhadhow ayuunbaan nafta kula yaacaynay booyadaana ka soo darsanayn kaamkii imika way soo biyo yaraanaya dabayaaqadii baa lala dhacayaa wuxuu dhadhowaa xaggan naga xigay hawd galbeed waxaan leedahay cabdi yuusuf xildhibaanka waanu u ducaynaynaa insha allah inta soo bixi doontuu noqon doonaa waanu ku mahadsanya biyaha noo keenay waajibna wuu lahaa inuu keeno waa dadkiisii iyo dalkiisii qof kastoo la midana waxaanu doonaynaa inuu sidiisaasoo kale yeelo qofka wuxuu bixin karayo uu bixiyo abaartu ku dhacdo haddii aan idhaa ay biyo waayaan haddii aan la idhaa wixii kale axwaalahee jirana haddii aan la idhaaho iyaguna ay soo hoos qaadayaan reer miyigu horta isagaa qaylin jiray waxa cajaa'ib leh qayladaa aan reer miyiga qaylin ee u dhawaaqin isagu isku warwareegayey xusuusta ummadda xusuusatay iyo haddii aan la idhaa dadka xusuustay ee haddii aan la idhaa iyagu baraarujinta la yimi ee haddii aan la idhaa deeqdiina waday aniga taasi cajaa'ibna leh halkaa waxa ku jira waannu horta u mahadnaqaynaa ilaahay weyn iyo iyagaba waxa weeye halkaa waxaa ku jira dee reer miyigiiba waxa naga il horreeyey oo waxaa ka muuqata halkaa ilaalin qalbiga ugu jira ama haddii aan la yidhaaho ay gacanta ku hayaan inay dadkii dad haddii aan la yidhaaho ilaalinaya oo agsoon oo xusuusan inay yihiin horta mahaddaa ilaahay baa mahad lehe waannu idin mahadnaqaynaa dhimcadana waa idinka guddoominay waxa uu heliya magaalada horena maanta haddii aan la yidhaaho dee xusbiga magaaladu waa santar weyn xusbiga diiriaarunbay horena ugu ahayd maantana u tahay waxaanu ku soo dhowaynaynaa wafdiga iyo xildhibaanka wata ayaanu ku soo dhowaynaynaa si gacmo furan iyo qalbi furan iyo duco ayaanu ku soo dhowaynaynaa soo dhowayskaa dabadeed waxaanu ka guddoominay deeqdana uu noo keenay ilaahay garansiiyey dadka iyo beeshuna u baahnaayeen way u baahnaayeen waxa loo dhimanaya waa biyo duunyada iyo dadkuba waddankuna waa lagu biyalaa horena waa loogu biyalaa saakana way ku sii kordhaysaa uun taa waannu ku soo dhowaynaa waxaannu kaga guddoomaynaa qalbi furan waxaannu waa u ducaynaynaa garashadaa uu gartay beeshii uu ka soo jeeday biyo ula carar horta iyada oo aan dawladdii iyo dad kuwii baayac mustarkaa midna aanay dareemin garashadaa inankaasi uu gartay sideedaannu u qaadanaynaa baahi biyood iyo baahi dad labaduba way ka jiraan deegaankan imminka aanu ka hadlayno biyaha noolagu keenay waxaannu ugu mahadinaynaa oo kale kaamamkii nagu dhowaa ee taaggaa kaamka qoolbuleele waxa weeye deegaammada waa kaamka u dad badan deegaan ahaan kaamamkii u soo aroori jiray ee wax u soo doonan jiray kuwaana wuu soo maro wuu soo siiyey ilaahay baa mahad leh waa u ducaynaynaa markaa waxaannu dawladda somalilan ka codsanaynaa dadkaa inay aragto wax u soo dirto ka war hayso iyo beesha inanku uu ka soo dhex baxay ee baayaca mustarada leh
ee odayaasha leh waxaannu leenahay waa inay xasuustaan inankaasi dareenka ku dhacay oo kale oo maanta oo kale inanka siday wuxuu ku mahadsan yahay waa deequ gartay ilaahayna wuu ku helayaa dadkan uu u keenayna wuu ku helayaa dadkii uu keenayna dee way ku noolaadeen oo way ku kaceen iyagana waftigana waxaanu leenahay allaha kugu guuleeyo adeer cabdi yuusuf cirro magan waxaannu leenahay garashadaa halkaad ku socoto waad gaadha insha allaahu annana waa kula garab taaganna haddii laydhaa in badan baan anugu doorasho iyo nin wax doonaya aan arkay nin wax doonayo dadkiisii ka warrayo og waxa uu ku sugan yahay waa ninkii koowaad horta nico doonaya uun mooyaan dadku muxuu ku sugan yahay nin isweyddiiya waa koow waa nasiibkii baan leeyahay waan idin soo dhowaynaynaa salaanta islaamkaannu idinku soo dhowaynayna marka u horraysa waxaa laga soo hadlay baahibiyood jamiciiga horreeya baa ka soo hadlay anugu baynta caafimaadka wax kaga daraya waxaanu leennahay meel dhakhtaro xanaanaha hana laga warray waayo haddaa kaliil hadday noqoto laba qaybood baa dadka bukooda had iyo jeer qaybta waaweyn iyo qaybta yaryar saaka reer baan soo maray qof weyn baa joogto haweena way jiiftay way xanuunsanaysay sidii dacareed baa lay hayaabay tir laakiin xanuun jiro weeyaan bulshadaba ku dhex jira ubadkana xanaanadan ku arkay gurigaygaba dee qaar baa jooga qubqubanayo cabcabanayo halkan kini looga qaadaa xanuunkaasina wuu jiraa marka dadka waxaan u sheegayaa shushuban wuu jiraa yar iyo weynba wuu jiraa labadaba biyiba laga soo hadlay anigu ku noqomaya biyaha qaybta caafimaadku ma intaan kaga daray marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu reer qoolbulale waa yeel iyo carruur iyo haweenba waan salaamay marka hore jimco wanaagsan jamac baad ka soo baxdeen maalin khayr qabeen isku nimi ilaahay salaadda hanaga aqbalo ta labaad halkan runtii dee wax ka warranteen baahi weyn baa ka warranteen oo biyola'aanta uga horrayso baadla'aantuna ay ku xigto runtii waa arrin aad looga naxo looga murugoodo biyaha yar aanu keenna maanta runtii maaha waan ognay inaanayna kafaynahayn ilaahay unbaana gacmihiisa subxaana wa tacaala ilaahay unbaa dee deeqda bixiyo ina kafayn karaya horta marka hore waxaan u baahan in ilaahay barino issaamaxno quluubta iska saamaxno iscafinno reer qoolbulana weliba masaajidka ay camiraan oo salaadda ku dadaalaan oo masaajida la camiro qaadkana yaraysataan iminka dhibtana haysataa wax kale maahoo habeen walba 800 oo kun oo dollar oo lacag adag ah ayaa Itoobiyada aynu jaarka nahay aynu u gelinaa habeen kasta hadeen bil kale jaadka iska dayn lahayn waxa laga yaabaa intaas oo kun oo riig inoo qodi lahayd Soomaaliland meel walba oo biyo badan biyahan maanta ka warwanayna ka warwanayn marka problem dhibaato badan baa jirta talo xumo ay baa runtii arrimahaasna ku urursan yihiin idinku runtii dee waxa idin si dheer halkan halgan baa soo gasheen waa halkii dalka lagu xoreeyay halkan xeradii faqashta ku taalay halkii wada intaas oo dagaal baa ku dhacay watii magaranaysa colaad joogta ah baa idin dheer ragina halka maanta jooga waxaan filayaa ragii qoolbulale wax yar baa ka sii noole xoogaalka marka dalkana de wax badan baa tacab badan baa abaal badan baad ku leedihiin dalka reer Soomaaliland xoreyntiisii tiin markii dambana de codeyntana runtii de waxaan filayaa halkan halka codka badan degmada Salaxley oo dhan marka horta waa ka suntantihiin marka halka waxaan baaq uga diraya dhammaan shacbiga reer Soomaaliland gaar ahaan xukuumadda qurbo joogta iyo cid kasta oo wax tari karaysa maanta guud ahaan degmada Salaxley ee abaarta baahsan biilaan ku jiraan cid wax soo tari karaysa horta halkan baaq ban maanta uga jeedinaa talabaad ilaahay aynu barino oo culimadu way joogtaa salaadii aynu tukanno magaranaysa roob doontii aynu soo baxno
dowladana iyo wasiirka diinta oo qabsanaysna waxaan ugu gaabinaysnaa inuu roobdoontii la akhriyo dalka oo dhan muxuu ahay laga duceeyo ilaahayna waxaan ka baranaa roob degdeg ah oo aajilan qeyr aaji oo aan habsaami ilaahayna ina siiyo subxaana tacaala runtii waqti adag baa lagu jiraa xoolihii waad sidaa sheegteen way ka baxeen cudurna wuu jiraa oo waad hadda laga warramayey cudurka koroonuhuna isna uu faafay idugna insha Allah ilaahay diisna hanaga nabadgeliyo oo iminka inta dambe soo badanaya calaamadahaasina waa shumankaasina waa calaamad cusub oo uu la yimid kaliishayna way runtii iyo xilligaas iska la bedelaya waxaan ka baxnay muxuu ahaayay jilaal hadana kayl baynu galnay marka waqtigaas bedelaya laga yaabaa inay cudurraduna yimaadaan ilaahay naga nabadgeliyo dhammaanteenba maanta maalin doorasho maaha inagu iska war haynaa magaaladeedii dee wixii dhibaato ka taagan waan la damqanayaa waan iska war haynaa mar kasta waan isla joogaynaa wixii tabasho jirtayna waan ka war haynaynaa insha Allah saldhigiina wuu soo socdaa wuu iman doonaa istabilisku halkan ka samayn doonaa haddii la yidhaahdo dee waan isku tiirsananaa ceelkii halkan maanta riigi la dhagax dhigay isna insha Allah wuu noo biyoobi doonaa haddii inkaa ayn helno wax biyaha waan ka bixi doonaa insha Allah dee waan la dareenkaas maanta ku nimid la qaybsano oo runtii dee aan la qaybsano waxaan ka tiri karna ka tarno markii koodna maaha insha Allah iska warhayn doona kolba si xaalad noqoto dadkana waxaan ku baaqanaa inay cid walba